meeqo ayay ku qaadanaysaa in ay Russia ka jawaabto weerar nuclear ah oo lagu soo qaado wadankeeda. Taliyaha ciidamada cirka Russia ayaa waxa uu sheegay inay kordhinayaan adeegga digniinaha ee dhinaca cirka iyo inay ballaarinayaan raadarada si ay uga hortagaan weerar cadowga oo la soo damco Russia, jawaab degdeg ahna ay uga bixiyaan haddii lagu soo xadgudbo hawada Russia. Taliyaha Battalion-ka 15-aad ee ciidamada gaarka ah ee Russia, General Anthony ayaa waxa uu sheegay in haddii ay helaan digniin weerar ah ay ku jawaabi karaan muddo 15 daqiiqo ah. Waa ay inagu filan tahay in aan ku jawaabno muddo 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo ah, inkastoo ay ku xiran tahay meesha uu weerarku ka soo socdo iyo xawaaraha uu ku soo socdo gantaalka lagu soo rido hawada Russia. Generaalka ayaa sidoo kale sheegay inay qorsheynayaan inay dhisaan raadaaro cusub oo loogu talagalay inay sheegaan digniinaha hubka nuclear-ka kaasoo ka mid ah qorshaha lagu hormarinayo ciidamada Russia sanadka 2025. Waa inuu muhiim in aan xog ka helno meelo kala duwan oo ka mid ah dalka. Warbixinada soo sheegaya qorshaha cadowga la damco Russia. Qorshahan ayaana ka mid ah horumarinta ciidamada Russia lagu hormarinayo sanadka 2025. Generaalku hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in qorshaha difaaca uu bilowday waxaana sanadka 2021 laga hirgelin doonaa waqooyiga Russia. Sanadka 2022 waxaa la fulin doonaa wajiga labaad, wajiga saddexaadna waxaa laga fulin doonaa gobolka Crimea oo Russia aad muhiim ugu ah. Dowladda Ruushka ayaa marar badan ku celcelisay inay munaasab u arkaan inay isku difaacayaan hubka nuclear-ka haddii ay khatar dareemaan. Xukuumadda Moscow ayaa carabka waxa ay ku adkaysay inuu weerar nuclear ay yahay mid ay jawaab kaga bixinayso haddii la soo weeraro oo aysan iyadu qaadaynin weerar nuclear ah. Madaxweynaha dalka Russia, Mr. Vladimir Putin ayaa waxaa laga soo xigtay in uu sheegay go'aanka weerarka nuclear-ka in ay qaadanayaan marka uu sheego raadarada digniinaha nuclear-ka Ruushka kuwaasoo sheegaya meesha uu ka soo socdo, halka laga soo riday, xawaaraha uu ku socdo iyo saacadaha uu Ruushka gaari karo gantaalkaasi. Toddobaadkan ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay madaxweynaha Russia in ammaanka caalamku uu xumaaday kadib markii Mareykanku ka baxeen heshiiskii gantaalaha ridada dhexe ee INF, isagoona sheegay in haddii Mareykanku ay gantaalaha difaaca geeyaan qaaradda Aasiya uu jawaabta la mid ka bixin doono. Mr. Putin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in aysan Ruushku ka bixin heshiiskii gantaalaha ridada dhexe ee INF, waxaana sidoo kale sheegay in sababta ay Mareykanku uga baxeen heshiiskaasi ay tahay inay gantaalaha difaaca geeyaan Aasiya. Heshiiska gantaalaha difaaca ayaa waxa wada saxiixay Midowgii Soviet iyo Mareykanka sanadkii 1987. Heshiiskaasi ayaa waxa uu burburay 2 Agoosto ee sanadkan 2019. Labada dhinac ayaana midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyay heshiiskaasi, kaasoo mamnuucay in gantaalaha balastikada ee dhulka laga hago iyo kuwa kuruuska oo ridadoodu gaarayso 500 ilaa 5500 oo kiiloomitir. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar barteena YouTube-ka si aad ula socoto warbixinada aan soo gelino. mahadsanid.